xildhibaan cabdirasaaq xuseen oobsiye shiina faliir oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa olole lagu xidhib tirayay xanuunka shuban biyoodka oo muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayay magaalada Burco ka fuliyay jeelka weyn ee magaalada Burco iyo sidoo kale cisbitaalka Maandheeye ee magaalada Burco waxaana uu xildhibaan cabdirasaaq xuseen oobsiye shiina faliir ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Burco inay iska ilaaliyaan waxyaabaha sababaya nadaafad darrada iyo sidoo kale xanuunka shuban biyoodka dadkeena dhimirka wax ka qaba marka dhexdiisii biyaa fadhiistay isaga laftiisa imka kiniin waan buufinay suuliyadiina imkaan buufinaynaa marka waxa loo baahan yahay meelaha noocaas oo kala ah ee dadweynuhu maartay isugu imanaya ama dadku jiifo inta xadar badan laga sameeyo oo la dagaalamo biyaha waa masaajidkii jeelka weyn oo ay fadhiyaan biyo fara badan iyo xaafadahan Titanic ka sokeeya oo isku rarana oo biyo aad u badan fadhiisteen jirmis balana ka dhashay waana halkii xanuunku iminka ugu badnaa dadka jeelka marka waxaanu sameeynaynaa chlorine inaan ku ridno biyaha bal si jirmiska hadii beedankeeda leeyahay uga dhinto wixii awoodayada ah hadii beedankeeda leeyahay si kastaba ahaatee tallaabadan uu qaaday xildhibaan cabdirasaaq xuseen oobsiye ayaa wax weyn ka tari doonta xanuunka shuban biyoodka oo muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayay magaalada Burco.